أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa suuradda labaad oo qur-aanka ka mid ah, suuratulbaqarati. baqaradii suuraddii lagu magacaabay madaniyatu madiinay ku soo degtay, wa aayaatuha aayadahaaduna 186 aayatan weeye, 286 aayadood, 287 aayadoodna waa la yidhaahdaa. waxaa kaloo ay noqonaysaa suuraddaanu 6121 kelime ayaa la yidhi. waxay kalay noqonaysaa ha la yidhi 25,500 oo xaraf ay noqonaysaa. suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxaa la yidhahdaa suuratulbaqara ayaa la yidhaah. waa suuraddii labaad oo waxaynu ka soo baxnay suuraddii koowaad oo suuratulfaatixa ayaynu ka soo baxnay. waxaana meeshaan ka gelaynaa suuradihii dhaadheeraay oo markaasi waxa weeye 6dii dhaadheereed, amba haddii waxa weeye bacdul aqwaal la fiiriyo 7dii dhaadheereed markii la isku daro suuratulbara iyo suuratulanfaal. wixii markaasi suuraddatan muqadamadeeda aheeday waxaynu usoo marnay, horay ayaanu usoo marnay, iyo wixii ku jiray oo markaasi fawaa'idaheeday. caalimka la yidhaahda ibnulcarabi waxau dhahay suuratulbaqara waxaa ku sugan 1000 amar iyo 1000 nahyi iyo 1000 xugun iyo 1000 khabar ayaa ku sugan u dhahay. akhduhaa barakatun wa tarkuhaa xasratun u dhahay. suuraddaas waxaa weeye qaadashadeedu waa barako, ka tegitaankeeduna shalay weeye. badaladuna ma awoodi karaan oo suxarada la yidhahda markii guri lagu akriyo shayaadiinta kuwooda muruxsan soo geli maayeen 3 maalmood ayuu dhahay. xadiis oo abu hurayra uu wariyo saxiix muslimka u dhigayana wuxuu ahay rasuulkeenu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum maqaabira fa ina ashaydaana yaqra'u min albeyti aladii tuqra'u fiihi suuratulbaqara. shaydaanku waa ka cararayaa guriga lagu akrinaayo suuratulbaqara ee suuratulbaqara ha lagu akriyo. amuurahaas waxaa weeye waxaynu ku soo marnay, casharkeena hore ayaynu ku soo marnay. suuraddatan marka waxaa weeye waxay ka warramaysaa tashriicaad ayay ka warramaysaa. mar hadday suurad madani ay tahay, axkaam fara badan ayaa loogaga warrami doonaa suuraddatan. oo waxa weeye munaafiqiintii baa looga warramayaa, jihaadkii baa looga warrami doonaa, xajkii baa looga warrami doonaa, dalaaqii iyo nikaaxiyaa looga warrami doonaa, xajkii iyo markaasi soonkii ayaa looga warrami doonaa. axkaam aad iyo aad u tiro badan, mucaamalatulbaac iyo amuurahaasaa looga warrami doonaa. bismi illaahi araxmaan araxiim. alif laam miim allahu aclamu bimuraadihi bidalik. alifkaas iyo laamkaas iyo miimkaas muraadka loogaga jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh. waxa weeye qur-aanka waxaanu ugu tegi doonaa meelo badan oo sidaas ayaanu ugu tegi doonaa. xuruuftatan hadda waxa weeye oo markaasi munazalada ah oo lagu soo dejiyey suuradaha awaa'ilkoodu waxay gaarayaan 14 xarafay gaarayaan. oo haddii markaasi xuruufulhijaa'iga uu leeyahay carabiyadu ay leedahay, ambase waxa weeye qur-aanku uu leeyahay
niskeeda noqonaysa maxaa yeele 28 waatay ahayd xuruufulhijaa'igu waxayna ku kala qaybsan yihiin 29 suuradood ayay ku kala qaybsan yihiin alif iyo laam waxaa lagu bilaabanayaa 13 suuradood ayaa lagu bilaabanayaa xa iyo miimna waa 7 xamiime 7 suuradoodaa lagu bilaabanayaa da waxaa lagu bilaabanayaa 4 suuradoodaa lagu bilaabanayaa kaaf waxaa lagu bilaabanayaa hal suuradaa lagu bilaabayaa ya waxaa lagu bilaabayaa hal suurad waa suuratu yaasiin saad waxaa lagu bilaabayaa hal suurad waa suuratu saad qaaf waxaa lagu bilaabayaa hal suurad oo waa suuratu qaaf nuun waxaa lagu bilaabayaa hal suurad oo suuratu nuun ah weeye xuruuftaa marka waxaa weeye lagu bilaabaayo suuradaha awaa'ilkooda qaar uxaadi waaye sida saad iyo nuun oo kalentood weeye qaarna sunaa'i waaye oo 2 weeye qaarna waxaa weeye sulaasi weeye waa 3 qaarna rubaaci weeye waa 4 qaarna waa khumaasi kamana badna inta khumaasiga ahoo isku daran waxaa weeye kaafa iyo cayn saad intaas waxaa weeye waa khumaasi waxaa weeye wax khumaasi ka badanna ma jiraan oo wax sudaasihu ma jiraan intaas ayaa ugu badan in markaasi cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala loo tiiriyo sidaas ayaana aslam ah oo ugu raajixsan oo aheeday dariiqatu salafu saalix sidaas ay ahaayeen maxaa yeela xuruufta noocaas oo xuruufulhijaa'iga cilmigooda ilaahay subxaanahu watacaala ayay u tiiri jireen marka sidaas ayaana raajixa warar badan oo laga sheegay oo culummada qalabka ay ka sheegeen waa jiraan waxaa weeye laase yeeshee wax la isku raacay ma jiraan oo markaasi meel la isla dhigay qaar waxay yidhaahdeen waxaa weeye xaraf kasta waxuu kutusinayaa isim oo ilaahay asmaa'idiisa kamida bilowgiisa u kutusinaya qaar wax badan baa la sheegay marka haddayse yeeshee sidaas ayaa ugu raajixsan oo mar walba waxaa weeye badanaa aynu ku soconaynaa dalika kaasow dhah ilaahay subxaanahu watacaala alkitaaba oo kitaabkaa laa rayba shaki fiihi isaga dhexdiisa ma ahaanin dalika kaasow dhah ilaahay subxaanahu watacaala mushaaru ilayhigu waxaa weeye waa kitaabkan qur-aanka ah dalika kaasow dhah ilaahay ay haada alkitaabu ayay ka dhigan tahay kitaabkan oo kana alladii yaqra'uhu muxamedun ow dha ilaahay oo nebi moxamed uu akrinaayo hadda waxa weeye kaaftaasu bucdiyay ku tusinaysaa marka hadda qur'aankana waxa weeye annaga wuxuu noo yahay qariib ayuu noo yahay ilaahay subxaanahu watacaala qariib ayuu u yahay waxa markaasi waxa weeye ishaaradan oo markaasi bucdiga loogugu ishaaray waa litacdiimaa layidhi weynayn la weynaynaayo oo qur-aanku inkastoo qariib annaga noo yahay haddana waxa weeye derajadiisa ayaa saraysa qadarkiisa ayaa weyn weeye maxaa yeele wuxuu ka nasahan yahay kalaamulxawaadis ayuu ka nasahan yahay dalika kaasow dha ilaahay ismu ishaarahaanu mubtado weeye laamtuna waa lilbucdi kaaftuna waxaa weeye xarfu khidaab weeye alkitaabuna waxay sifa u noqonaysaa ismu ishaarahaas weeye ama waa cadfu bayaana la yidhi jumlada laa rayba fiihina khabarkiyay noqonaysaa taasoo xataa waxa weeye jalaaleynku uu ishaaraayo dalika kaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala alkitaabu oo kitaabka oo nebi moxamed uu akrinaayo laa rayba shakiyow dha ilaahay fiihi isaga dhexdiisa ma ahan inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu xaggiisa kasoo degay waxaa ilaahay ku radinayaa mushrikiinta oo rasuulkeena yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam lafta mursalanay yidhaahdeen waxaa kaloo yidhaahdeen moxamed ayaa qur-aanka been abuurtay mar waxay yidhahdeen inamaa yucallimuhu basharun bashar bani aadama ayaa qur-aanka baraaya ilaahay marka wuxuu caddaynayaa qur-aankaanu xaggiisa inuu kasoo degay hudanow dhah ilaahay ay haadin mid hanuuninaayo weeye hudantaan macnaa waxay noqonaysaa haadin ayay noqonaysaa waxaana weeye waxay noqonaysaa khabar oo labaaday noqonaysaa hudanow dhah ilaahay ay haadinow dha ilaahay mid hanuuninaayo weeye waa rashaad iyo bayaan weeye waxayna noqonaysaa markaasi masdar oo bimacnaa ismu faacila weeye hudan ay haadin ayaa la leeyahy waxaa markaas la dhihi karaa ha la yidhi ay hudan ayduu hudan hanuun mid u saaxiiba wey la yidhahda oo markaasi saas lasoo qadaro ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala hudan ay haadin waa mid hanuuninaha dha ilahi subxaanahu watacaala kitaabkaasu lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta o ilahay ka cabsanaayo qur-aankan wuxuu hanuun u yahay dha ilaahay dadka mutaqiinta ah assaa'iriina ila taqwa ilaahay taqwadiisa kuwa ahaaday oo bimtisaali awaamiri wajtinaabi nawaahiya loola jeedaa awaamirta ilaahay waxau fara ayay fartoomeen wixii ilaahay ka reebana way ka hareen marka dadkaas ayaa waxaa weeye qur-aanku hanuun oo u yahay ayaga ayaana ilaahay naartiisa ugaga dhowrsanaya marka dadka mutaqiinta oo kitaabku hanuunka u yahay ayaa ilaahay noo sifaynaya oo dhowr sifo oo markaasi afar gaaraysa ilaahay noogu sifaynaya markaasuu dha ilaahay aladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaayow dha ilaahay bilqaybi qeybka rumaynaya aladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaayow dha ilaahay bilqaybi qeybka rumaynaaya waxaa ilaahay tafsiilinaya bacdu sifaati almutaqiin weeye waxa ayaga markaasi loogu khasisaayo sifooyinkaane
waxa weeye ayaga ayaa waxay ku sugan yihiin aclal awsaaf awsaafta midda ugu sarraysay ku sugan yihiin aladiina ayuu dha ilaahay mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaaya bilqaybi qeybka rumaynaayou dha ilaahay subxaanau watacaala bimaa qaaba canhum waxa ka ciilan oo baxsigii iyo jannadii iyo naartii iyo wixii lamid ah waxyaabaha markaasi samciyaadka ah oo aynu maqlayno ayaa markaasay rumaynayaan maxaa yeele hadda jannada iyo naarta iyo qiyaamada iyo axwaalaheeda iyo waxyaabo kaloo fara badan wax indhaha aynu ku hayno maahan oo waxaan dhigaha kaliya aanu ku maqalnay waxyaabahaas ayay rumaysan yihiin haddana ilaahay wuxuu dhahay wayuqiimuuna asalaata salaada oogaayow dha ilaahay salaada ayay oogayaanoo waxay kula imaanayaan xuquuqdeeday kula imaanayaan wa mimaa kii xaggiisaw dha ilaahay rasaqnaahum aanu ku arsuqnane yunfiquuna way bixinayaan haddana ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala salaada ayay oogaayaan awqaadeeda shuruudeeda arkaanteeda aadaabteeday la imaanayaan iqaamadu sidaas weeye wixii aanu ku arsuqnaa wax kamidane way bixinayaan oo daacada ilaahay ay ku bixinayaan xoolaha dhammaantood in la bixiyo maahane wixii markaasi falal ah iyo wixii tadawucaba in qayb la bixiyo ayaa la doonayaa waxna la reebto haddana ilahay wuxuu yihi waladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaayow dha ilaahay bimaa kii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiya sayidka maxamedka ahow waa qur-aankaasa weeye waladiina mutaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaaya bimaa kii unzila ilayka laguu soo dejiyey iyo wamaa kii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaada la dejiyey oo kutubtii tawreed iyo injil iyo kayrkoodaba ah wa bilaakhirati aakhiradane hum ayagu ayuu dhah ilaahi subxaana wa tacaala yuuqinuuna kuwa yaqiininaayo ah wa bilaakhirati aakhiradane hum ayagu ayuu dhah ilaahi subxaana wa tacaala yuuqinuuna kuwa yaqiininaayo ah aakhiradana waxay u rumaysan yihiin yaqiin ayay u rumaysan yihiin weye ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo sifaatkaa lagu soo sheegay calaa hudan hanuun korkiisa kuwa ku sugan weeyow dha ilaahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay calaa hudan hanuun kuwa ku sugan weeye oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humulmuflixuuna waa kuwa liibaanay ilaahay wuxuu caddeeyey inay hanuunsan yihiin dadka sifaatkaa ku sifoobay haddana ilaahay wuxuu caddaynayaa inay liibaaneen oo ay maaragtay janno ay ku liibaaneen ilaahay cadaabkiisana ay ka koraayaan dadkii wanaagsanaayo mu'miniinta ahay oo mutaqiinta ahay sifaadkooda iyo ma'aalkooda ilahay markuu kasoo warramay sida ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa caadiisa ay ku dureysatay waxaa ilaahay nooga warramayaa kufaarta iyo ma'aalkooda ilahay nooga warramaya alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay sawaaun waxaa jin ah calayhim korkooda a andartahum u digtayaa am lam tundirhum uma digina laa yu'minuuna ma rumaynaanu ilaahay ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyey ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay subxaana wa tacaala kafaruu kufriyey waktigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida hadda abijahl iyo raggii kaleentoodoo kufaartii waaweynaa ayaaba kamida weeye ina aladiina inadu xarfu tawkiid wa nasbin weeye aladiina kafaruuna isimkeedi weeye laa yu'minuuna jumladaas ana khabarkeedi weeye jumlada sawaaun calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yu'minuuna waxay noqonaysaa jumlo oo muctaridah oo ismu ina iyo khabarkeedi kala dhex gashay saasaana ugu roon icraabta sawaaun waxaa jin ahow dha ilaahay calayhim korkooda a andartahum u digtayaa am lam tundirhum uma digina laa yu'minuuna ma rumaynaaya cilmiga ilaahay waxaa ku dhaqay oo azali u sabqiya qoladaas inaysan rumaynayn marka waxaa weeye ilahay wuxuu leeyahay iimaankooda ha damcin weeye khatamallaahu alla waa daboolow dha ilaahay calaa quluubihim laabtooda ilaahay daboolo kuwaas ilaahay qalbigooda ayuu daboolay dabci oo macnawiya ilaahay saaray khayrna geli maayo wa calaa samcihim maqalkooda ayaa ilaahay daboolay wa calaa samcihim maqalkoodana ilaahay waa daboolay mawaadicda ayaa loola jeedaa samcigo waxa weeye maqalkooda ku intifaacan maayaan oo xaqa kuma dhegaysanayaan wa calaa absaarihim ow dha ilaahay aragyaashooda korkoodane kishaawatun daboollo ayaa ah wa calaa absaarihim ow dha ilaahay aragyaashooda kishaawatun daboollo ayaa ah oo waxa weeye araggoodana daboollo macnawiya ayaa ilaahay saaray oo xaqa ku arki maayaan acdaadaas oo ilaahay uuna siiyey oo qaaliga ah mar haddii waxa weeye sidii ilaahay ha loo sarfiyo uu yidhi aan loo sarfin oo markaasi waxa weeye aan lagu intifaacaynin waxay ka dhigan yihiin shay macduumah oo kale ayay ka dhigan yihiin walahum waxaa u sugnaadow dhah ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaas waa cadiimun oo weyn oo waxa weeye mar hadday sidaa ay yihiin ay ku sifoobeen sifaatkaas hoosha xunne waxay iska leeyihiin buu dhaha ilaahi subxaana wa tacaala cadaab cadiima ayay iska leeyihin o dha ilahi subxaana wa tacaala waana in markaasi cadaabku waxa weeye isaalul aalaamiyaa la yidhahdaa lilxayawaani calaa wajhi lhawaana la yidhaha cadaab waxaa la yidhaha sidiisaba xanuun oo markaasi la gaarsiiye xayawaanka ayadoo lagu ihaanaysanayo marka waxaa weeye cadaab oo lagu ihaanayso ayay gelayaan o dhaha ilaahi subxaana wa tacaala qolada oo sidaa ku sifowday cadaab oo qawiya oo daa'ima weeye wa min annaasi dadka waxaa kamid ah u dha ilaahay man duul yaquulu dhahaaya aamanaa waanu rumaynay bilaahi alla ayaanu rumaynay wa bilyawmi yoomkiina waanu rumaynay alaakhiri oo dambo wal xaal ayayna sidaas leeyihiin maahum aysan ahaynin
bimu'miniina kuwa rumeeye ayuu dhah ilaahay subxaanahu watacaala markii uu noogaga soo warramay mu'miniintii oo waxa weeye daahir iyo baatinba iimaanka iska lahay kufaarta waxa weeye kufrigoodu daahir iyo baatin wahay markuu nooga soo warramay qaybtan saddexaad ilaahay wuxuu nooga warramayaa kufaar oo waxa weeye daahirka waxa weeye mu'miniinka ah baatinkana kufaarka ah kufaar oo baatinka kufaarka ah daahirkana iimaan ka sheeganaya oo munaafiqiin la yidhaahdo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya axwaashooda ayaa ilaahay nooga warramaya iyo markaasi dulliga ku dhacaaya iyo ilaahay subxaanahu watacaala sida u jaasinaayo miisaalka la yeelaayo amarkooda ciibtiisa si ay noqonayso waxaana loogaga warramayaa 13 aayadood oo aayad ugu dambaysta ilaahay uu dhihi doono ina allaha calaa kulli shayin qadiiray ku dhamaataa ilaahay waxau ka akhiray mu'miniinta iyo kufaarta daahir iyo baatinba ah oo mu'miniinta daahir iyo baatin ilaahay rumeeyey iyo kufaarta daahir iyo baatin ilaahay ku kufriyey ayaa dib looga dhigay waxaa la ishaarahaa la yidhi ayaga ayaa ka xaalad xumaa la yidhi kufaarta caadiga ah maxaa yeelay sida hadda idnaabka loogu samaynayo ayaad garanaysaa oo markaasi loo badinaayo sifaadkooda cadaabkoodana ilaahay ugaga warrami doono sifaadkooda xuno loo sheegaayo ilahay wuxuu yidhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man duul yaquulu ku qawlaaya aamanaa billaahi ilaahay ayaanu rumaynay wa bilyawmi yoonkina waanu rumaynay alaakhiri oo dambo wal xaal maahum aysan ahayn ow dha ilaahay bimumina kuwa rumeeyey aysan ahayn marka hadda iimaan layska sheegto ilaahay agtiisana aan saxiix ka ahayn waxba tari maayo yukhaadicuuna allaha alla ayay khadeecaayaan ilaahayay dhagraayaan ow dhah ilaahay sida markaasi ayaga ay la tahay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayay khadeecayaan ow dha ilaahay maxaa yeele waxay daahirsanayaan biidhaari khilaaf maa abdanuuhu weeye min alkufri weeye waxay daahirsanayaan waxyaabaha ay qarinayaan wax markaasi waxa weeye khilaafsan oo kufriga si waxa weeye axkaamta oo dunyawiyada ay isagaga daafacaan wamaa yukhaadicuuna ma dhagraayaan ow dha ilaahay oo ma khadeecaayaan ilaa anfusahum naftooda mooye oo khadaacadaasu naftooday ku dhexaysaa khadaacadaas lianna wabaala khadaacihim raajicun ilayhim waxa weeye dhagartoodaas baaska ka yimaado ayaga ayuu kusoo noqonayaa adduunyada ayay ku falleexoobayaan oo ilaahay rasuulkiisa ayuu dhaalacsiinayaa waxa ay qarinayaan markaasaa adduunyada lagu falleexaynayo sida dhacday aakhirana waa lagu ciqaabayaa wamaa yashcuruuna masa garanaayaan ow dha ilaahay oo ma ogsoona khadaacaas ay samaynaayaan inuu naftooda ku dhacaayo ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fii quluubihim ow dha ilaahay kuwaas laabtooda waxaa ahaadow dha ilaahay maradun bushi ayaa ahaaday fii quluubihim laabtooda ow dha ilaahay subxaanahu watacaala maradun bushi ayaa ahaaday shaki iyo munaafiqnimo ayaa qalbiga uga jira weeye markaasuu wuxuu jiriyey quluubtooda ayuu jiriyey oo uu laciifiyey fazaadahum ullahu dabeedna alla wuxuu u ziyaadiyey ow dha ilaahay maradan maral ayuu ilaahay u ziyaadiyey walow maxaana u sugnaadow dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiya bimaakii sababkiisa kaanuu ay ahaadeen yadibuuna kuwa been sheego qowlkooda ku been sheegay ahaadeen hadda maralkan waxaa la yidhi waxaa lagu idlaaqaa midka xisiga xisiga marka lagu idlaaqo waxa weeye waa markaasi midka la yaqaano cudur loo jeeda ah weeye midka macnawigana waa lagu idlaaqa oo shakiga iyo munaafiqnimada ah weeye waxaan shaki lahayn ba la yidhi nimanka munaafiqiinta qulubtooda labadaas maralba waa ku jira midka xisiga iyo midka macnawiga la yidhi maxaa yeele midka macnawiga ayaa hadda ku jira laakiin sabab wuxuu u noqonayaa mid xisiya ayuu macno u noqonaya oo sabab u noqonaya maxaa yeele arrintaas munaafiqnimadaahu maral oo xisiyay gaarsiinaysaa adduunyadana waa lagu falleexaynaya aakhirana waa lagu cadaabaya marka ilaahay waxau dhahay alla maral ayuu u ziyaadiyey maralku wuxuu ugu ziyaadayaa qur'aanka markaasi soo degaaya oo kufrigooda ka warramaaya cadaab aliimana aakhire iska leeyihin ow dha ilaahay sababtuna waxaa weeye inay ku been sheegeen hadalkooda ay dhahayeen aamanaa waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay laa tufsiduuha fasahaadina fil arli akhladaha fasahaadina qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kaleeta mayne naxnu annagu muslixuuna kuwa hagaajinaayana arladan fasahaadka ka daaya markii la yidhaahdo waxay leeyihin annagu muslixiinaana waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay laa tufsiduuha fasahaadina fil arli dhulka dhexdiisa oo kufriga ka daaya iyo dadka iimaanka aad ka sarfinaysiin qaaluu waxay leeyihiin inamaa in kaleeta mayne naxnu annagu muslixuuna kuwa hagaajinaayana walaysa maa naxnu fiihi bifasaadin waxaan ku sugannaha fasahaad maahan ilahay isagoo ku radinaya wuxuu dhahay alaa hooy ayuu dha ilaahay alaalway tambiih weeye baraarugay ayuu dha ilaahay inahum ayagu humulmufsiduuna waa kuwa fasahaadinaya way fasahaadinayaan arladow dha ilaahay walaakin kalkeeda laa yashcuruuna ma garanayaan fasahaad inay wadaan maxaa yeele dadka mufsidiintaahu waxa ay wadaanba ma fahmaayaan waidaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdow dha ilaahay aaminuu rumeeya kama aamana naasu dadku siday u rumaynayaan oo asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam siday u rumaynaan kale u rumeeya markii la yidhaahdo qaaluu waxay leeyihin ow dha ilaahay anu'minu miyaanu rumaynaynaa kamaa sida aamana sufahaau kuwa juhaaladaah ay u rumaynayaan
asxaabta ay ku wadaan rasuulka alayhi salatu wasalam asxaabtiisa ku wadaan qaaluu waxay leeyihiin ayagoo inkiraya warkaa la yidhi anu'minu miyaanu rumaynaynaa kamaa aamana sufahaau kuwa juhaaladaah siday u rumaynayaan ma falayna ficilkooda oo kale ay leeyihiin ilaahay isagoo ku radinaya wuxuu dhahay alaa hooy ayuu dha ilaahay inahum ayagu hum sufahaau kuwa sufahaa weeye ayagaa sufaha jaahiliina weeye markay dadka jahli ay ku sheegayaan ayagaa sufaha ah walaakin kalkeeda laa yaclamuuna ma ogsoona maxaale dad badanoo waxaa jira dadka inuuna wax garan u arkaayo isaguna waxba aanan garanin waidaa waktigii laquu ay la kulmaan ow dha ilaahay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay leeyihin aamanaa waanu rumaynay waidaa waktigii laquu ay la kulmaan ow dha ilaahay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay leeyihin ow dha ilaahay aamanaa waan rumaynay dadka mu'miniinta markay la kulmaan iimaan ayay u sheeganayaan waxaa kamid ahay raggaas cabdullahi ubay bnu salool iyaa kamid ahay weye markay ragga asxaabtaa la kulmaan ayay markaasi wanaag u sheegi jireen sabab nuzuulka aayaddana abubakar iyo cumar iyo cali ayaa waxay aadeen cabdullahi ubay bnu salool lacanahu llahu markaasaa abubakar waxau dhahay war adiga iyo asxaabtaadu kaalaya ee ikhlaas sameeya markaasuu waxau dhahay marxaban bishaykhi wasidiiq cumarna waxau dhahay marxaban bilfaaruqi alqawiyi fi diini sayid calina marxaban yabna cami nabiy ayuu dhahay war fiican markaasaa sayid cali waxau dhahay war ilaahay ka cabsou dhahay munaafiqnimada iska daaw dhahay warkaan been ku sheegi mayside markaasuu dhahay warkaas anagu uma dhihin ilaa waxaa weye inuu iimaankaygu iimaankiina oo kala yahay mooyaane marka wararkaasaa ilaahay subxaana watacaala uu ku beeninayaa qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waanu rumaynay waidaa waktigii khalow ay khaali noqdaan oo waxa weeye dadka mu'miniinta ay ka tagaan kuwa markaasi waxa weeye ay u tagaan shayaadiintooda hor ru'asadaane waxay leeyihiin sidaanu dha ilaahay waidaa waktigii khalow ay khaali noqdaan ilaa shayaadiinihim shayaadiintooda ay u khaali noqdaan qaaluu waxay leeyihiin inaa anagu macakum micigiinaa nahay idinkaan idinla jirnaa oo diinta idin kala mid nahay inamaa in kaleeta maahine naxnu anagu mustahzi'uuna kuwa jeesjeesayaan ahayn qoladaas markaan iimaanka u sheeganayna waanu ku jeesjeesaynay ilahay wuxuu yihi allahu alle ayaa yastahzi'u bihim ku jeesjeesaaya ilaahay kiisuu jaasin waaye isisaa xaqiiqiisa ilahay waa ka nasahan yahay allahu alle yastahzi'u bihim waa ku jaasinaya isisahooda wayamuduhum alla waa u koranayaa fii duqyaanihim xadgudubkooda ayagoo ku sugan yacmahuuna xaalihiin kuwa wareersan ayagoo xadgudbaaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u sugayaa wayamuduhum ow dha ilaahay alla waa u koranayaa fii duqyaanihim xadgudubkooda ayagoo ku sugan oo ayagoo baadilkaas ku dhex jira ayaa loo kaadinayaa cumrigaa loo dheeraynayaa owlaadaa loo badinayaa risqiga ayaa loo siyaadinayaa waxa weeye caafimaad ayaa la siinayaa sidaas iyagoo ah ayaa sidaas markaasa waxa weeye loo tabaansabayaa yacmahuuna xaalihiin kuwa wareersanow dha ilaahay oo mutaradidiin oon meelna aanan ku sugnaynin ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala aladiina kuwa weyow dha ilaahay ishtarawu dalaalata baayida shiraysow dha ilaahay bilhudaa hanuunka bedelkiisow dha ilaahay qoladan munaafiqiinta alla wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay aladiina kuwa weeye ishtarawu dalaalata baayida shiraysow dha ilaahay bilhudaa hanuunka bedelkiisa baadan baa ulbedeliye ayaa la yidhaha waxa weeye hanuunkii ayay ina qaadeen ayay waxay kusoo iibsadeen baadiday kusoo iibsadeen waxaa laga dhigayaa markaasi lagu shabaha sharaha xaqiiqigaa weeye maxaa yeele hanuunkii bay ka tageen markaasay baayidi qaateen marka haddee baayida ay soo gateen maxay tahay ilahay wuxuu yihi famaa rabixad ma aysan ribxin tijaaratum tijaaradoodii ma aysan ribxin ow ilaahay famaa rabixad ma aysan ribxin tijaaratum tijaaradoodii ilaan wax markii lasoo sharaysto waxaa markaasi la raadiyaa ribix baa la raadiyaa nimankaa mar haddii waxa weeye baadidii ay waxa weeye hanuunka kusoo iibsadeen oy baadidii waxa weeye ay soo qaateen hanuunkiina iska bixiyeen ribx meesha iskama aysan ow ilaahay marka hadda isnaadu ribxi litijaara waxaa la yidhi majaas oo caqliya waaye ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala famaa rabixad ma aysan ribxin tijaaratum tijaaradoodu ma aysan ribxin maa rabixuu fiiha weye bal khasiroo way khasaareen maxaa yeele limasirihim ila naari lmu'abadati calayhim naar oo weligood ay ku jiraan ay ahaanayaan qof waxa weeye wax naar oo ku jiraayo weligiis waxa weeye qaatay oo markaasi jannadii ka tegey hadda xaggee waxa weeye khasaare mid ugu xumeed ayuu khasaaray wamaa kaanuu mana aysan ahaanin buu dhahay ilaahi subxaana watacaala muhtadiina kuwa hanuunaa ma aysan ahaanin waxyaabaha markaasi ay faleen wax ay ku hanuuneen ma ahan buu dhahay ilaahi subxaana watacaala oo hidaayadina ilaahay subxaana watacaala ayaa ka sarfiyey hadda waxa weeye hidaayadii hadday kusoo iibsadeen baadine waxa weeye khasaare ayay kala kulmeen famaa rabixa tijaaratuhum way tijaaradoodii ma aysan ribxin ow dha ilaahay maa rabixuu fiiha kuma aysan ribxin bal khasiroo way khasaareen maxaa yeele ribix markii la waayey maxaalidkiisa khasaaro munaafiqiinta marka khasaare ayaa ku dhacday naar weligood ay ku jiraayaan ayayna ahaanayaan markaasuu dha ilaahay wamaa kaanuu mana aysan ahaanin muhtadiina kuwa hanuuna ma aysan ahaanin oo ilaahay daacadiisa kuma aysan hanuunin hidaayadana waxaa u diiday ficilkaas hoosha xune oo ay samaynayaan iyo waxyaabahaas beentahay ku dhaqmaayaan ayaa waxay u keentay
aysan hanuunin. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna soo yidhi kuwaasu waa kuwa shiraystay baadida oo hanuunka ku beddel qaatay tijaaradooduna ma aysan ribxin buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala mana aysan ahaanin kuwa hanuuna ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka meeshan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u yeelayaa munaafiqiinta masal ayaa ilaahay u yeelayaa, masal ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u yeelayaa nifaaqooda ugu masal ah. marka ilaahay markuu soo caddeeyey qabaa'ixdoodii iyo amarkooda ciribtiisu sida uu ahaanayo, waxaa halkan uu ka gudagelayaa inuu amhaal uu u sameeyo, waxaana ilaahay amhaashaas uu ku caddaynayaa sifadooda iyo waxa ay ku sugan yihiin ayaa ilaahay ku caddaynayaa. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala masaluhum masalkoodaw dha ilaahay sifatuhum fii nifaaqihim weeye, sifadooda oo munaafiqnimada ugu sifo ah, ka sifati ladii kii sifadiisi waa la too ayuu dha ilaahay istawqada huriyey ayuu dhah ilaahay naaran dab huriyey. waxau la mid yihiin buu dhah ilaahay munaafiqiintu nin meel mugdiyo jooga wakti oo waxaa weeye roob uu da'ayo rooba baw ah, meel mugdiyo jooga oo dab hursaday, dabkina waxaa weeye markaasi oo u iftiimay. falamaa goortii ayuu dhah ilaahay allah ad naarti ay hurisay maa xawlahu hareerihiisa wixii ahay oo wax uu arkaday, dabkina uu dugsaday oo kulaalay, wixii uu ka cabsanayana uu ka nabad galay, dahaballaahu alla uu la tegow dha ilaahay binuurihim nuurkoodii uu la tegey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nuurka uu ka demiyey. hadda meeshaan lamiirka waa la jamciyaa layidhi, waxaa la ilaalinayaa mawsuulka macnihiisa ayaa la ilaalinayaa. dahaballaahu alla waa la tegayow dha ilaahay binuurihim nuurkoodii, oo markaasi mawsuulkii alladiida ahay ayaa waxaa la soo qaatay macnihiisiyaa la soo qaatay. wa tarakahum alla waa ka tegey buu dhah ilaahay fii dulumaatin mugdiyaale ayuu ugaga tegey laa yubsiruuna ayagoon arkaynin waxa hareerahooda oo mutaxayiriin ahoo waleersan oo waddadii ka lunsan haddana khaa'ifiin ah, oo wixii dabka u kordhiyey oo faa'iidaha ay ka heleen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qaaday. marka waxaa la leeyahay munaafiqiintu waxay la mid yihiin kuwa noocaasa ayay la mid yihiin, kuwa waxaa weeye ayagoo mugdiga jooga dabka horsaday ee markii waxaa weeye dabkii meel walba uu ifiyey oo ay wax arkeen oo ay dugsadeen oo ay ku nabad galeen, markaas ilaahay dabki uu ka demiyey. munaafiqiintu kuwaas ayay la mid yihiin oo ilaahay uu ku shabahayaa. waxayna ula mid yihiin baa layidhi, horta munaafiqiintu waxa weeye iimaan daahira ayay sheegteen oo waxay ku dhawaaqeen kelimatul iimaan. taasi waxay ka dhigan tahay waxa weeye dabki oo iftiimay oo kaleentood weeye. marka dabki marka uu iftiimay oo wax walba ay ku arkeen iimaankaas ay daahirsanayaan ayaa lagu shabahayaa. markaan dabka ilaahay uu kala tegaayo oo mugdiyaalo ay ku soo harayaan ayagoon wax arkayni, waxaa lagu shabahayaa xaaladooda qiyaamo siday noqonayso. oo markii ay dhintaanaa layidhi waxaa u imaanaya khawf iyo cadaab ayaa u imaanaya. khawfka iyo cadaabka u imaanayana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shabahayaa waxa weeye dabkaas nimankaa lagala tegey ee iftiinkii uu ka baaba'ay ee wixii markii hore ay heleen laga qaaday oo wixii xumaanahay iyo dhibka ay ka baqayeen dib ugu soo laabtay. maxaa yeele munaafiqiinta adduunka markay iimaankooda kusaas ugu nabad galaan oy dhiiggooda iyo maalkooda ku ilaaliyaan, maalinta qiyaamo ayay runtii arrintu imaanaysaa, kolkaasay cadaabka ilaahay la kulmayaan. haddana ilaahay wuxuu yidhi summun tanu waa khabar mubtadiisa uu maxduuf yahaye, hum ayagoo ayuu dhah ilaahay summun waa kuwa maqalla ayuu dhah ilaahay, waxay ka maqal la'yihiin xaqa inay dhegaystaan simaaca qabuulin. bugmun waa kuwa afla ayuu dhah ilaahay oo kharsi ayaa ku jira, khayrka ayay ka af la'yihiin oo khayrka kuma qowlayaan, waxay ka dhigan yihiin ruux akhras oo kaleentood. cumyin waa kuwa indhalla ayuu dhah ilaahay oo dariiqa hanuunka ayay ka indhala'yihiin, dariiqa hanuunkana ma arkaayaan. fahum ayagu ayuu dhah ilaahay laa yarjicuuna ma laabanayaan oo baadida ay ku sugan yihin ka soo laaban mayaan. haddana ilaahay wuxuu yidhi ow ka sayibin ow ambasa ayuu dhah haddana ilaahay masaluhum usoo qadaro masalkoodu ka sayibin ka asxaabi madarin, madar asxaabtiis waa la too ayuu dhah ilaahay. hadda waxaa weeye tashbiihan kale isagana waanu sheegaynaa. ow ambasa ayuu dhah ilaahay masaluhum masalkoodu ka sayibin ey ka asxaabi madarin, madar asxaabtiis waa la too. dad waxaa weeye roob uu ku da'aayo ayay la mid yihiin buu dhah ilaahay subxaana wa tacaala. ka asxaabi madarin waa la too ayuu dhah ilaahay. madarkaasoo yanzilu ku soo qadaro ka soo degaya min asamaa'i, samada ka soo degaaya oo saxaabka ka soo degaaya.
fiihi saxaabkaas dhexdiisana dulumaatun mugdiyaale ay ku sugan yihiin iyo wa ra'dun ayuu dhah ilaahay gugac ambase onkod iyo wa barqun hilaacow dhah ilaahay lamcaanka markaasi ka soo baxaaya weeye yajcaluuna way yeelaayaan buu dhah ilaahay qolada asxaabu sayibkaahu asaabicahum farahooda ayay yeelayaan fii aadaanihim dhegahooda ayay yeelayaan waxayna u yeelayaan buu dhah ilaahay min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda ka cabsasheeda daraaddeeda u dhah ilaahay min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda daraaddeeda sawaacida dhacaysoo onkodkaa ah ayay dhegaha farta gelinayaan saysan waxaa weeye u maqlin waxayna u yeelayaan buu dhah ilaahay xadaralmowti liajli xadaralmowti mowtka digtoonaashadiisa daraaddiisaw dhah ilaahay wallaahu allow dhah ilaahay muxiidun kii kooba weeye alle cilmi iyo qudro ayaa ilaahay ku koobay bilkaafiriina kaafiriinta hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinti wuxuu ku shabahayaa dad waxaa weeye roob ou maaragtay ku da'aayo marka dadkaa roobka ku da'ayana roobka waxaa weeye waxay ka helayaan gugac ama maaragtay hilaac ayaa roobka ka dhacaaya gugac waa ka dhacaya hilaac waa ka dhacaya gugaca onkodna waa loo yaqaanaa barqiga waxaa weeye isagun hilaac weeye ama biriqda caadiga oo la arkaayo weye dad sidaas ku sugan ayaa lagu shabahayaa haddana kufaarta weye marka hadda waxa loogu shabahaya waxaa weeye baa layidhi oo mushabbaha iyo mushabbahu bihigu uu noqonayaa ilan tashbiih waxa uu keenayaa mushabbah iyo mushabbahu bihi iyo wejhu shabah iyo adaatu tashbiih ayaa meesha ka imaanaysa marka hadda qoladan munaafiqiinta waxaa layidhi qur'aanku markuu soo dego qur-aankana waxaa weeye lagu sheego kufri lagu sheegaa layidhi oo markaasi lagu shabahayo dulumaadka qur-aanka waxaa lagu shabahayaa isaga madarkaa lagu shabahayaa kufriga lagu sheegaayana waxaa lagu shabaha qur-aanka dulumaadka lagu sheegaayana oo waxaa weeye madarka dulumaadka lagu sheegaayo waxaa weeye madarka mugdiyaa ku jira waxaa lagu shabahayaa kufriga ayaa lagu shabahayaa waciidka markaasi qur-aanka ku jirane waxaa lagu shabahayaa isagana racdigaa lagu shabahayaa xujooyinka cadcad oo qur-aanka ku jirane waxaa lagu shabahayaa hilaacaa lagu shabahayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dhegahooda ayay owdayaan si aysan u maqlin onkodkaas aysan u maqlin macnaha waxaa laga wadaa qur-aankii bay dhegaha ka qabsanayaan oo simaaca qabun u dhegaysamayaan maxaa yeele waxay ka baqayaan iimaanka inay u iishaan oo diinkooda baadilka ay ka tagaan kaasoo waxa weeye ayaga agtooda mawdka ah xadaral mawti marka leeyahane ayaga diinkoodoo ay ka tagaan ayaa agtooda dhimasho ka ah marka haddii aan tashbiihan wax yar aanu ku celinno waxa uu noqonayaa qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shabahayaa madarkuu ku shabahayaa waxa weeye kufriga qur-aanka lagu sheegaayane ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shabahayaa dulumaadka madarka ku jira waciidka qur-aanka ku jirana ilaahay wuxuu ku shabahayaa racdiga ayuu ku shabahayaa oo ku shabahayaa gugaca amba onkodka xujooyinka oo cadcad oo qur-aanka ku jirana ilaahay wuxuu ku shabahayaa hilaac ayuu ku shabahayaa mawdkana waxaa lagu shabahayaa dhegaha ay ka qabsanayaan qur-aanka waxay markaasi ka baqaayaan qur-aanka inay u iisho qalbigoodu oy diintooda baadilka ay ka tagaan markaasuu dha ilaahay ow ambase masaluhu masalkoodu ka sayibin ka asxaabi madarin madar asxaabtiis waa la too ayuu dha ilaahay madarkaasoo min asamaa'i yanzilu min asamaa'i saxaabka ka soo degaaya fiihi saxaabkaasna dulumaatun mugdiyaale ay ku sugan yihiin iyo wa ra'dun gugac ayuu dhah ilaahay ama onkod malagga loo wakiisho weeye amba waa sawdkiisa laakiin bayaankeeda waxaan ugu tegi doonaa suuratu racdi insha allahu tacaala iyo wa barqun hilaacow dhah ilaahay yajcaluuna way yeelaayaan buu dhah ilaahay asxaabu sayibkaasu asaabicahum farahooda macnaha anaamusha ayaa laga wadaa fii aadaanihim dhegahooda ayay yeelayaan min asawaaciqi min ajli sawaaciqi jacda daraaddeeda onkodka waxaas ka dhacaaya xadalalmowti liajli xadalalmowti mowdka cabsashiisa daraaddiisa mowd ayay ka digtoon yihiin weeye wallaahu allow dha ilaahay muxiidun alhii koobay weeye bilkaafiriina kaafiriinta ilaahay waa koobay oo cilmi iyo qudro ayuu ku koobay ilaahayna ka baxsama karaan haddana ilaahay wuxuu yidhi yakaadulbarqu hilaacu wuxuu sigaa yakdafu inuu dafo absaarahum aragyaashooru hilaacaas wuxuu sigayaa inuu aragga ka dafo oo si surca uu ku qaado kullamaa in dhammoo allah oo u ifo lahum ayaga mashow fiihi way ku soconayaan iftiinkiisay ku soconayaan kullamaa in dhammoo allah oo u ifo lahum ayaga mashow fiihi way ku soconayaan buu dhah ilaahay waidaa watigii adlama uu mugdiyaabo calayhim korkooda uu ka mugdiyaabo hilaacune qaamuu way istaagayaan buu dhah ilaahay aayaddan dambana waxa weeye waxaa tamsiil looga dhigayaa
sida nimankaanu qur-aanka waxa ku jira ay ugaga baqayaan oo waxa weeye qalbigooda ilaahay xijaabka u saaray oo qalbiga looga daboolay haddana ay u rumaynayaan markii ay maqlaan waxyaabo ayagu ay jecel yihiin maxaa yeele qur'aanka waxaa soo gelaya waxyaabo adduunyo iyo waxyaabahaas ka sheekaynaya maxaa yeele qur-aanku wuxuu koobayaa adduunyo iyo aakhiro ayuu koobayaa oo dan adduunya iyo dan aakhiraa ku jirta marka waxaa laga dhigayaa marka waxa weeye ay ka baqayaan inuu aragga uu ka dafo waa markii waxa weeye qur-aanka waciid iyo waxyaabo ayaga naftooda jeclayn lagu sheego weye marka ilaahay uu leeyahay kulamaa allahu mashow fiihine waxa weeye waa marka oo qur-aanka walax ayagu ay jecel yihiin oo dana adduunyaha lagu sheego wa idaa adlamna calayhim qaamuune waa markii waxa weeye qur-aanka markaasi meel uu gaaro ayaga dantooda aysan ku sugnayn ilaahay wuxuu yidhi walow shaa allahu alla hadduu doonaayo ladahaba wuxuu la tegi lahay biabsaarihim araggooda ayuu la tegi lahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala samciga caadiga oo maaragtay xisiga ayuu alla ka qaadi lahay iyo wa absaarihim aragyaashoodaw dha ilaahay walow shaa allahu alla hadduu doonaayo ladahaba wuxuu kala tegi lahay alle bisamcihim maqalkoodaw dha ilaahay macnaha asmaacda weye iyo wa absaarihim aragyaashooda daahirkaa weye sida macnaha kamaa dahaba bilbaadini weye kamaa dahaba bilbaadinati weeye tii baadinkaa heeday basiiradii oo baadinka ahayd sida alla uga qaaday ayaa ilaahay midda xisigan uga qaadi karaa dha ilaahay maxaa yeelow dhah ilaahay in allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa ou doono qadiirun alihi kara weeye in allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun alihi kara weeye waxaana lamid ah oo ka mid a waxyaaba hadda la soo sheegay alla inuu ka qaado oo samciga iyo basarka xisiga alla inuu ka qaado ayuu alla awood u leeyahay yaa ayuhannaasu dad yahabow yaa ayuhannaasu dad yahabow ucbuduu caabuda ayuu dhah ilaahay rabbakum rabbigiina caabuda hadda aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kula khidaabayaa mukallafiinta ayuu kula khidaabayaa waxaa la yidhi qur-aanka ilaahay kuma naadin baa la yidhi yaa nidahaasu min allaahi ha ka ahaaday licibaadihi aw minhum lilaahi baa layidhi waxayna u sugnaataa layidhi lilnidaa'i albaciidaa layidhi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ahaaday inaan shay isaga shabahaynin oo xawaadisa allana uu ka nasahan yahay xawaadista inuu markaasi uu shabaho daatada iyo sifaadka iyo afcaasha ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku naadinayaa yaa wuxuuna sidaa ilaahay u yeelayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala xisi oo maaragtay waxaan dhihi lahay bucdi oo macnawiya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay uu naga fog yahay marka ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala yaa ayuhannaasu dad yahabow ayuu dha ilaahay marka hadda waxaa yidhi niduhu waxaa weeye todoba u qaybsamaya nidaa oo markaas nida la yidhaha nidaau tanbiih maca madxin weeye sida yaa ayuha nebiyu marka ilaahay nebigiisa leeyahay amase waxaa weeye nidaau tanbiih maca damin weeye sida yaa ayuha aladiina haaduu amase tanbiih oo maxliya sida yaa ayuha alinsaanu ama markaasi mid oo idaafaa sida yaa cibaadiye ama mid nisbe ah sida yaa nisaa nebiyi ama mid oo tasmiye ah sida yaa daawuudu amase mid takhsiisa sida yaa ahlalkitaabi oo waxa weeye niduhu todobadaas ay u qaybsamaan ha layidhi ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuhannaasu dad yahabow waxay markaasi kutubta ugu fasiraan ahlumaka ayaa loola jeedaa inkastoo hadda suuraddaanu ay suurad madaniya ay tahay laakiin jamiicu lmukallafiin oo dhan ayaa loo naadinaya ha layidhi maxaa yeele siyaaqa dambe ayaad ka fahmaysaa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuhannaasu dad yahabow ucbuduu rabbakum rabbigiina caabuda ilaahay rabbigiina waxida weeye alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala meel cadama ayuu idinka ehaysiiyey waaladiina wa khalaqa aladiina kuwiina abuurow dha ilaahay min qablikum idinka hortiin ahaaday allihii meel cadama idinka abuuray dadka idinka horreeyey ummatu maxamed ka horreeyena abuuray oo cadam idinka wada abuuray allahaas caabuda ayuu dha ilaahay lacallakum waxaa mudantihiin oo xaqiiqahu dha ilaahay tattaquuna inaad dhowrsanaysaan oo alla aad ka baqaysiin markii aad ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa aad la timaadaan lacallada qur-aanka iyo axaadiisa waxaa weeye xaqiiqo weeye tii markaasi carabiyadoo lacalla litaraji wa tawaquci maahan weeye maxaa yeele haddii cabsi ilaahay lala yimaado oo cibaado alla lala yimaado waxaa imaanaysa in maaragtay cibaadadu ay noqoto mid xaqiiqa weeye haddii maaragtay alla la caabudo waxaa imaanaya markaasi taqwaa dhalanaysa markaasuu dhah ilaahay alladii allahaasoo
jacala lakumul arla jacaladan bimacnaa khalaqa weeye jacala lakumul arla arlada idiin abuurow dha ilaahay firaashan xaal ay tahay tii gogol ah sideedana waa loo dayi karaa ha layidhi jacala lakum idinkaga yeelay al arla arlada firaashan gogol idinkaga yeelay wasamaa'a samadana binaa'an saanqaaf idinkaga yeelay maxaa yeela waxaa weeye samadu arlada ayay saqfi u tahay wa anzala dejiyow dha haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala min asamaa'i samada xaggeeda maa-an madarka soo dejiyey wa anzala dejiye min asamaa'i samada maa-an madarka soo dejiyey fa akhraja dabeedna soo bixiyey bihi bisaabil maa'i maa'i sababkiisa ilaahay samada uu ka keenay asamaraati mirayaala ku soo bixiyey fa akhraja dabeedna bixiye bihi bisaabil maa'i asamaraati mirayaala ku soo bixiyey risqan arsuqi daraaddeeda oo lakum idinka laydin arsuqaayo adinka ayaa laydin arsuqaa howdha ilaahay haddana waxa weeye dawaabtiinane waxa weeye arladaas ka soo baxay ayaad ku calfinaysiin falaa tajcaluu ha u yeelinow dha ilaahay lilaahi alle andaadan shuraka ha u yeelina ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la garab dhigo oo cibaadada loola waajiyo ha u yeelinow dha ilaahay falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi alle andaadan shuraka ha u yeelina maxaa yeelay alla wuxuu soo dhahay ucbuduu rabbakum weeye rabbigiina caabuda marka allana waa allaha sifaadkaa ku sifoobay marka kayrkiis cibaadama mutaysa karo wal xaal antum idinkuna taclamuuna aad ogsoon tihiin alla inuu yahay midka khaaliqa waxaa weeye asnaamta aad caabudaysaan haddii lagu wado masalanba kufaartane ilaahay wuxuu leeyahay wax ma abuuri karaan wax ay samay karaan ma jirto marka waxaan wax abuuri karin wax la caabudo maahane allaha isagu wax abuuraaya oo sifadaas sifatulkamaalka ku sifoobay isagaas caabuda ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala shariigna ha u samayna wa in kuntum haddaad ahaateenow dha ilaahay kufaaray ayuu dhah ilaahay fii raybin shaki kuwa ku sugan mimaa kii xaggiisana ugaga sugan nazalnaa aanu dejinnay calaa cabdinaa addoonkayna nebi maxameda calayhi salatu salaam aan ku dejinnay oo qur-aankaasa ood ka shakisan tihiin qur-aanku ilaahay agtiisa inuu ka ahaaday wa in kuntum haddaad ahaateen fii raybin shaki kuwa ku sugan mimaa kii xaggiisana uga sugan nazalnaa aanu ku soo dejinnay calaa cabdinaa addoonkayna fa'tuu la kaalayow dha ilaahay bisuuratin suurad la kaalaya oo min mislihi qur-aanka masalkiisa qur-aanka wax masalkiisa oo suurad lamida keena ayuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala marka hadda mintan waxaa weeye lilbayaan weeye wax masalkiisa xagga balaaqada iyo nadmiga wanaaggiisa iyo akhbaarta qeybka laga warramaayo wax lamida keena weeye hadda suuraddaanu suurad oo qur-aan oo go-an maahan baa layidhi maxaa yeele suurad waxaa la yidhahdaa qayb oo markaasi aayado ah suurad bay noqonayaan waxaana ugu yar baa layidhi 3 aayadood xataa suurad waa la dhihi karaa marka hadda meeshaan suuro oo luqawiya ayaa loola jeedaa hadda waxa weeye xaraf qur-aanka ka midane inta ilaahay subxaanahu wa tacaala oo xuduudahu u sameeyey qur-aanka xaggiisa oo intaasba ka caajiseen waa inoo imaanayaan wadcuu u yeerow dhah ilaahay shuhadaa'akum shuhadadiina u yeera shuhadada waxaa laga wadaa aalihadiina wadcuu u yeerow dhah ilaahay mushrikiinow shuhadaa'akum aalihadiina u yeera aad caabudaysaan oo min duunillaahi ilaahay sukadiisa si waxaa weeye ay idinkuu kaalmeeyaan oo waxa weeye qayb aayada ah amba suurad ah oo qur-aanka ay idinla keenaan oo idinkuu kaalmeeyaan in kuntum haddaad ahaateenow dha ilaahay saadiqiina kuwa run sheegaaya haddaad run ku sheegaysaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aankan inuu isagu naftiisa ka samaystay arrintaas sameeyaa layidhi maxaa yeele meesha waxaa ku jirta oo la leeyahay fa innakum carabiyuuna fusaxaa'a mislahu adinkuba waxaa tihiin baa leeyahay dad carab ah oo fusaxo ah oo nabigoo kale maaragtay fusaxada saas ku ahaatihiin marka haddaan qur-aankaanu xag ilaahay uusan ka ahaanin carab fusaxaa idinkuba tiina keen ayaa leeyihi maxaa yeele hadda waxay ka mid tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankan mucjiska hoo la siiyey mucjisooyinka markaasi waaweyn ayuu maaragtay ka mid yahay mucjisada nabiga la siiyey waxaa u weyn qur-aanka ayaa ugu weyn marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen rasuul walba markii la soo bixiyo waxaa la sii jiray shay mucjiso ah oo waktigaas waxa la xiiseeyo waxa markaasi waxa weeye ugu sarreeyo ah maxaa yeele hadda masalama nebiyullaahi muusa markii la soo bixinaayey waxa weeye waktigaas sixirka ayaa waxa weeye wax lagu faano oo maqaam la ayaa ahay baa layidhi sixirka ayaa wax maqaam la ahay marka waxaa la siiyey say sixirka shabaha oo ka awood badiyey nebiyullaahi ciisa waktigiisii cilmiga cilmu dibiga oo markaasi dhakhtarnimada ayaa horumar gaartaa layidhi marka cudurro ay ka caajiseen dadkii adibada ahay ayaa inuu bogsiyaa ilaahay uu siiyey
rasuulkeena calayhi salatu salaam waqtigiisa fusaxada ayaa lagu faani jiray oo carabtu xagga fasaaxaday ku faani jireen. fasaaxada markay ku faani jireen ayaa qur'aankan oo ka sara maray fasaaxadoodii ayaa nabiga la siiyey. marka sidaas ayaa waxa weeye loo leeyahay wax lamida keena. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala markay arrintaa ka caajiseen fa in lam tafcaluu haddaydaan falina waxa la soo sheegay oo aad caajiseen. fa in lam tafcaluu haddaydaan falina lamtaani waxay anfinaysaa wixii markaasi maadihoo tegey. maxaa yeele markaan hadda hadalkaana leeyahay ka hor ma aysan samayn. walan tafcaluu faliba maysaan ayuu dha ilaahay. oo mustaqbalkani inaad keentaan rijo lagama qabo. oo lamtuna waxay anfinaysaa wixii maadiya, lantuna waxay anfinaysaa wixii mustaqbala. marka marnaba inaysan arrintaas horunagu suurtogelin hadda inaysan ka suurtogelin baa ilaahay sheegaya. saa hadday jirtow dha ilaahay oo horena u samayn haddaanada sameeyhayna fattaquu cabsadow dha ilaahay. oo waxa weeye inaad alla rumaysaan la imaada weye. fattaquu dhowrsada ayuu dhah ilaahay annaara naarti ka dhowrsada. dhowrsada naar looga dhowrsan kara waa in alla la rumeeyo iyo rasuulkiisa calayhi salatu wasalaam. fattaquu ka dhowrsadow dha ilaahay annaara naarti allatii naartaasoo waquuduhaa kan lagu hurinaayo annaasu dadka u yahay. dadkuna waxa weeye waa kufaarta weeye. iyo walxijaaratu dhagxaantow dha ilaahay. dhagxaantuna waa asnaamtay caabudi jireen. naartaas ka dhowrsadow taasaa idin hursane. naartaasoo uciddad loo diyaariyow dha ilaahay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta loo diyaariyow dha ilaahay. marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka soo warramay kufaartii iyo maaragtay sifaadkoodii iyo ma'aalkoodii, caadada qur-aanka ilaahay waxay ku direersatay inuu maaragtay dadka muuminiinta waxa ku tacalluqa iyo maaragtay amarkooda cidibtiisa uu ka warramo. marka ilaahay wuxuu yidhi wabashir u bishaareyow dha ilaahay u khabar aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo ilaahay rumeeyey wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha suuban. acmaasha saalixada furuud iyo nawaafilba way isugu jirtaa. bianna lahum ow dha ilaahay inay u sugnaatay uga khabarow dha ilaahay jannaatin jannaat. wa bashir u bishaarow dha ilaahay sayidka maxamedkaahow aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay assaalixaati acmaasha suusuuban anna lahum ow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala anna lahum inay u sugnaatay jannaatin jannaat. jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa alanhaaru webiyaal ay dureerayaan. webiyaasha afartaa ilahay qur-aan ku sheegtay doono weeye. kulamaa in dhammoo rusuquu la arsuqow dha ilaahay minhaa jannadaas laga arsuqo. kulamaa waxaa layidhi tufiidu tikaar weeye. risqiga muuminiinta jannada lagu siinaayo inuu mar walba lagu celinaya laga qaadanaya. kulamaa in dhammoo rusuquu la arsuqow dha ilaahay minhaa jannadaas laga arsuqo min samaratin timaarow dha ilaahay risqan arsuqid laga arsuqo. qaaluu waxay leeyihiinow dha ilaahay haadaa midkaanu alladii kii weeye rusiqnaanu laku arsuqa min qablu hadda ka hor. waa wixii hadda ka horna la siiyey. jannada sideedaba waxa weeye waxa laga cunaayo tamatuc iyo faakihe ayaa loo cunaa ee waxa weeye gaajo iyo dhibaato looma cuno. marka ilaahay wuxuu yidhi markii la arsuqo samaar lagu arsuqow dha ilaahay qaaluu waxay leeyihiin haadaa midkaanu alladii kii weeye misla maa kii masalkiisa weeye rusiqnaanu laku arsuqa min qablu hadda ka hor. waxaan hadda ka hor cunayna weeye. maxaa yeelay jannada simaarteedu way isshabahaysaa halayidhi. wa utuu waa loola yimidow dha ilaahay biikaas risqigaas waa loo keenay mutashaabihan xaal uu yahay kii isyabahow dhah ilaahay. waxay sidaa u leeyihiin wa utuu bihi risqigaas waa loo keenow dha ilaahay mutashaabihan xaal uu yahay kii isyabaha. yashbahu waxa weeye yashbahu bacduhu bacdan weeye barkiisaa barka kala shabah. laakiin wuxuu isku shabahaa layidhi xagga maaragtay madabka weeye. dacmiga laakiin waa isu khilaafsan yahay. walahum waxaa u sugnaaday fiiha ayuu dhah ilaahay jannada dhexeeda aswaajun haween mudaharatun oo la dahiray wahum ayaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waara weye. xagga tamatucana ilahay wuxuu yidhi haween la dahiray oo xayd iyo wax kastoo la qarmoonsa laga dahiray ay leeyihiin haddana jannada way ku waarayaan weligeed kama baxayaan kamana gaboobayaan weye. wallahu subxaanahu wa tacala aclam casharkeena intaas u eegi. wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu.